kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta waxaynu maanta ka warrami doonaa maxaa dadka qaar ka dhigay inay taajiriin noqdaan dadka qaarna ka dhigay inay faqiiriin noqdaan marka laga yimaado qoraalka iyo qadarka Ilaahay haddana waxaa jira waxyaabo kale oo ay u siman yihiin isla markaana keeni karta inay dadka saboolka ahi noqdaan taajiriin balse iyagu ay ka faa'iideysan waayeen fursadahaas waxaa jira dad badan oo caan ah oo hantiilayaal ah oon ugu horrayntii wax lacaga haysan jirin sidoo kale waxaa jira dad lacag badan dhaxlay balse dhintay iyagoon wax lacaga haysan halkaa waxaad ka ogaan kartaa in waxa keliya ee kala saaraya hantiilayaasha iyo dadka saboolka ahi ay tahay habka ay u fikirayaan iyo kala duwanaanshaha filashadooda arrintaana Ilaahay ayaa xadiisul qudsi inoogu caddeeyey waxaanu Ilaahayna leeyahay anu waxaan miciisa ahay ama aan la jirkiisa ahay wuxuu addoonkaygu iga malaysanayo ama iga filanayo waxaa laga yaabaa in dadka hantiilayaasha ahi ay yihiin dad hamigoodu weyn yahay isla markaana ay mar walba Ilaahay ka filayaan wax fiican halka dadka saboolka ahi laga yaabo inay bilowgiiba isdhiibaan ama quustaan isla markaana is yidhaahdaan adiga sidan ayuu Ilaahay kuu qoray halka hantiiluhu dhibka u arkayo inay guushiisu soo dhowdahay isla markaana uu sii badinayo dadaalka iyo sabirka haddii qof taajir ahi dhammaan lacagtiisa khasaaro wuxuu mar kale dib u maarayn doonaa inuu dhammaan lacagtaa dib u urursado isla markaana uu dhaqaale dib u abuuro haddii aad adiguna doonayso inaad taajir noqoto sirta keliya ee aad u baahan tahay waa inaad fahanto sida dadka taajiriinta ahi u fikiraan noloshoodana u maareeyaan oo aad adiguna u bilowdo inaad samayso dhammaan waxyaabaha ay sameeyaan muuqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa 8 hab oo ay u fikiraan dadka hantiilayaasha ahi si aad adiguna hab fikirkooda u barato isla markaana aad ugu dayato Number 1 waxay bilaabaan ganacsi ay leeyihiin waxa adag inaad hesho milyaneer u shaqaynaya qof kale ama lacagta aadka u badan ka sameeyay shaqaalanimada xataa haddii aad qof ka hesho wuxuu noqonayaa qof weyn oo ma noqonayo qof milyaneer oo da'yar dadka taajiriinta ahi waxay bilaabaan ganacsi ay ka taajiraan halka dadka saboolka ah ama dhexdhexaadka ahi ay ku xidhan yihiin mushaar bileed halkaana ay ku dhaafaan fursado badan oo ay hanti badan ku samayn lahaayeen haddii aad doonayso inaad taajir noqoto waa inaad bilowdaa ganacsi adiga kuu gaara haddaba intaynaan qodobkeena kan xiga gudagelin channelka subscribe saar videogana like saar Number 2 waxay u fikiraan si weyn taasina waxay keentaa inaanay ku qancin shaqooyinka mushaarka aadka u yari ka soo gelayo waxay doortaan inay ka shaqeeyaan mashaariicda waaweyn ee ay ka soo gelayaan dhaqaalaha aan xadidnayn Number 3 waxay leeyihiin damac guba haddii aad doonayso inaad taajir noqoto waa inaad lahaataa damac ku guba dad badan ayaa raba inay taajiriin noqdaan balse ma laha damac guba oo ay taajiriin ku noqon karaan haddii aad si dhaba u rabto inaad taajir noqoto waa inaad seexataa wax yar shaqaysaa waqti badan khataro badan qaadaa aad waajahdaa caqabadaha isla markaana aad u adkaysataa waana habka ay u fikiraan dadka taajiriinta ahi ama ay sameeyaan Number 4 waxay abuuraan wax tayo leh dadka taajiriinta ahi waxay si fiican u fahmeen xaqiiqada ah in haddii wax qiimo leh aad dadka u soo kordhiso ama wax tayo leh u soo saarto inay lacagta ku soo galaysaana aad u kordhayso sidaa awgeed waxay markasta ku dadaalaan sidii ay wax qiimo leh dadka ugu soo kordhin lahaayeen haddii aad doonayso taajir inaad noqoto jooji inaad eegto faa'iidada kaa soo galaysa waxa aad iibinayso oo muhiimad iyo dareen gaara sii sidii aad u soo kordhin lahayd wax qiimo leh faa'iidadaada iyo lacagtaaduna iyadaa kordhi doonta haddii aad sidaa samayso Number 5 waxay yaqaanaan sida lacagta loo kaydsado dadka taajiriinta ahi ma yaqaanaan oo keliya sida lacagta faraha badan loo sameeyo balse sidoo kale waxay yaqaanaan sida lacagta loo kaydsado waxaa jira dad tiro badan oo ay malaayiin lacag ahi soo galeen haddana ku dambeeyey inay sabool noqdaan waxay awoodi waayeen inay iswaafajiyaan noloshii ay ku noolaayeen iyo dhaqaalahooda badanaa ku noolow heer ka hooseeya heerka aad dhab ahaan ku noolaan karto badanaa ku noolow heer ka hooseeya heerka dhab ahaan aad ku noolaan karto hana daadaadin hantidaada oo si xad dhaaf ah u isticmaalin inaad lacag samaysaa aad ayay muhiim u tahay sidaasi lamid ah waxaa iyana muhiim ah inaad lacag kaydsato
Number 6 waxay diiradda saaraan inay aqoon bartaan. Dadka taajiriinta ahi waxay fahmeen in cilmiga iyo aqoontu aanay ahayn oo keliya awood, balse sidoo kale ay yihiin lacag. Waxay dadka si toos ah uga iibiyaan aqoontooda, ama waxay u isticmaalaan aqoontooda inay lacag kaga helaan kuwa aan iyagu aqoonta lahayn. Haddii aad rabto inaad taajir noqoto, intaad awooddo naftaada ku maalgeli inaad barato aqoon, siino kordhiso aqoontaada, koorsooyin cusub qaado, ka qaybgal tababarrada la bixinayo, sidoo kalena akhri buugaag badan. Qof kasta oo lacag badan samaynaya oo aad aragtaa sababta uu lacagta badan u helayaa waxay tahay wuxuu leeyahay nooc aqoon ah oo u saamaxaysa. Number 7 waxay maalgelin ku sameeyaan lacagtooda. Dadka taajiriinta ah waxay badanaa raadiyaan habab ay ku kobciyaan lacagtooda. Lacagtooda waxay geliyaan ganacsiyo si lacagtaasi lacag kale ugu soo saarto, halka ay dadka aan taajiriinta ahayn lacagtooda u isticmaalaan baahidooda iyo rabitaanadooda, sida inay ku iibsadaan guryo qaaliya, baabuur qaaliya, iyo dhar qaaliya, iyo wixii la mid ah. Si aad taajir u noqoto, waa inaad badisaa lacagta ku soo gelaysa, ha kaa baxaysana aad yaraysaa. Waa inaad yaraysaa ama aad iska daysaa iibsiga waxyaabaha aan muhiimka ku ahayn. Number 8 dhinaca fiican ayay wax ka eegaan. Dadka taajiriinta ahi dhinaca fiican ayay wax ka eegaan. Fikir qaldanna kama haystaan lacagta, sida inaan lacag la samayn karin, in lacagtu shar iyo xumaan kuu horseedayso, iyo fikrado kale oo aan wax xaqiiqo ah ku salaysnayn. Badanaa taajiriintu waxay waajahaan dhibaatooyin iyo caqabado fara badan, haddana fikirkoodu wuxuu ahaadaa mid fiican. Taasina waxay ka caawisaa inayna ka leexan hadafkoodii ee ay si fiican diiradda u saaraan. Dadka taajiriinta ahi maaha kuwa nasiib leh. Dadka taajiriinta ahi maaha kuwa nasiib leh, balse waa kuwa iskudaygooda sii wada, kuna celceliya marar badan ilaa ay ka guul gaadhaan. Diyaar u ahow markay fursaddu albaabka kugu soo garaacdo, adigoon marnaba quusan, si aanay fursaddu cid kale ugu gelin markaad adigu quusato. Channelka subscribe saar si aanay marnaba kuu dhaafin xogaha cajiibka ah ee aan ku soo gudbiyo barteena Maamuusa Media.